waxyaabaha uu muhiimsan naftiisa ayaa waxa ay tahay marka ugu horeyso naftiisa uu fahmo marka aad naftaada aad fahanto ayay ku sahlan tahay inaad u go'aan aad qaadato waayo go'aanku waa shay muhiim ah waa mid ka aan lehe naftaada hogaaminaya had iyo jeerna waxaa muhiim ah in noloshaada adigu aad fahanto marka aad noloshaada aad fahanto ayaa hore sii socon kartaa waayo aan lehe qofka bini'aadamku waxa keliya u baahan yahay ama nafsadiisu ay u baahan tahay ayaa waxa ay tahay inuu horumar u gaaro horumarna waxaad ku gaari kartaa mar walba in naftaada adigu aad kaxayso naftaadana adigu aad ku hogaamiso waxyaabaha aad ku wanaagsan ee had iyo jeer adigu guud aad ku gaari karto waayo qofka bini'aadamka meesha keliya uu qaali u kaya waxa ay tahay markuu naftiisa uu hore usii qaado ama nafsadiisa uu hormariyo had iyo jeerna waa muhiim noloshaada ama naftaada adigu aad ka warhayso adigu aad ogaato waxyaabaha aad ku fiican tahay adigu aad ogaato waxyaabaha aad ku lidato marka adigu aad ogaato waxyaabaha aad ku fiican tahay ama waxyaabaha aad ku lidato waxaa kuu sahlan adigu go'aan aad qaadato go'aankaasoo ku salaysan mid cilmiyeysan oo hadhow mustaqbalkaaga adigu aad go'aan uga gaari karto waxyaabaha adigu aad jeceshahay in adigu aad fiirsato mustaqbalkaaga dhow iyo mustaqbalkaaga fog waayo qofka bini'aadamka had iyo jeer waxaa muhiim ah in nafsadiisa uu kaxeeyo oona ku kaxeeyo meesha u wanaagsan si markaasi uu horumar u gaaro waayo horumarku waa waxa keliya ee naftaada u baahan tahay haddii adigu aad horumar aad gaarto marka ugu horreyso waxay faa'iido u tahay naftaada marka labaadna waxay faa'iido u tahay eheladaada marka labaadna waxay faa'iido u tahay waddankaaga intaas haddii macnaha ay faa'iido u tahay marka adigu maxaa kuu diiday nafsadaada adigu aad gaarsiiso horumar aad u ballaado waayo horumarku waxyaabaha keliya ee aad u muhiimsan adiga haddii aad tahay qof bini'aadam ah markii adigu aad fiiriso wadamada hormaray dad bini'aadam ayaa ku nool dadkaasi oo horumar aad u ballaaran gaaray laakiin ma isweydiisa su'aal dadkaasi maxay ku gaareen horumar adiguna aad ku gaari weysay dadkaasi waxay horumar ku gaareen xilliga adigu aad jiiftay ayay ayaguna dadaalayeen ay samaynayeen research ayna samaynayeen development si markaasi noloshooda ay horumar uga gaaraan xilliga adigu aad ciyaaraysa ayay ayaguna fikirayeen xilliga adigu aad macnaha waqtigaagii aad luminaysay ayay ayagana waxay ka faa'iidayeen in waqtigooda ay maamulaan ayna ku maamulaan naftooda siday u horumarin lahaayeen waxaad ogaataa qof kasta oo bini'aadam oo horumar gaaray adigu kaama sareeyo keliya laakiin wuxuu ku dheeryahay waqti ayuu wuxuu ku bixiyey naftiisa inuu adiga oo horumariyo qofkaas maanta adigu aad daawanaysa ee gaaray horumarka ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu siiyey 12 saac oo habeen ah adiguna waxaa lagu siiyey 12 saac oo habeen ah asigana waxaa la siiyey 12 saac oo maalin ah adiguna waxaa lagu siiyey 12 saac oo maalin ah keliya asiga wuxuu ku dheeryahay dadaal ayuu sameeyey juhdi ayuu nafsadiisa geliyey horumar ayuu sameeyey inta adigu aad jiiftay oo waqtigaada aad ku ciyaaraysay ayuu asiga waqtigiisii maamulay si markaasi noloshiisii guul uga gaaro haddaba waxaan rabaa inaan kuu soo gudbiyo qodob oo muhiim ah qodobadaasi oo saamaxaya in naftaada adigu ay gaarto horumar qodobka ugu horeeya waxa ay tahay marka ugu horeyso inaad la timaado wax loo yaqaano aan dhexee caadooyin caadooyinka waxaa la jeedaa qof kasta oo bini'aadam ah waxa uu leeyahay meel uu hiigsanayo taasoo ah in mustaqbalkiisa uu gaaro marka ugu horeyso waa in adigu aad caddaysaa waxyaabaha adigu aad hiigsanayso mustaqbalkaaga dhow iyo mustaqbalkaaga fog markii adigu aad hiigsi la timaado waxaad bilowday waddadii koowaad ee mustaqbalkaaga aad ku maamuli lahayd waddada labaad ayaa waxa ay tahay noloshaada had iyo jeer in adigu aad ku tarbiyayso waxa loo yaqaano aan dhexe waxbarasho waayo waxbarashada had iyo jeer waxay muhiim u tahay naftaada ayay muhiim u tahay waxay muhiim u tahay cilmigaaga waxay muhiim u tahay aqligaaga waxay muhiim u tahay mustaqbalkaaga dambe intaas maadaama ay muhiim u tahay had iyo jeer waxaa fiican naftaada inaad adigu aad ku tarbiyayso inaad la noqoto aan dhexe wehel waxbarasho
waayo haddii aad waxbarashada had iyo jeer naftaada aad ku tarbiyeyso waxaad kuu sahlan hadafkii adigu aad noloshaada aad ka lahayd in adigu aad gaarto wixii adigu aad soo qeexday naftaada aad ku soo qeexday in adigu aad gaarto waana muhiim waana kaalinta labaad ee ugu muhiimsan in had iyo jeer naftaada aad ku tarbiyeyso waxyaabaha loo yaqaano waan dhahay waxbarashada inaad ala noqotaan dhahay wixii aad u ballaaran kaalin saddexaad oo muhiimka ayaa waxa ay tahay inaad iska fiiriso deegaanka aad degayso waayo deegaanku waa wax keliya ee ugu muhiimsan ee mustaqbalkaaga kuu kaxayn kara ama aan dhihi kaa hor istaagi kara haddii adigu aad degan tahay deegaan qariban ogow aan dhahe naftaadana hadhow dhaqankeeda wuxuu noqon doonaa deegaanka aad degan tahay haddii laakiin deegaankaadu uu yahay mid aad u qurux badan mid aad u wanaagsan mid dadkiisu ay fiican yihiin mid wax laga barto mid ehelkiisa uu fiican yahay mid dariskiisa uu fiican yahay naftaadana mustaqbalkeeda waxay ku soo baxaysaa in deegaankaasi ay u arkaato naftaadana ay kuu kaxayso in deegaankaasi kudayasho ee la jisho markii taa adigu aad samayso deegaankana aad iska fiiriso qodobka saddexaad ayaa ku gudubtay qodobka afraad ee ugu dambeeya waxa ay tahay maareynta waqtigu waa muhiim waqtigu markii la qeexayo waxaa lagu qeexay halkii ee lagu qeexay waqtigu waa mid socda oo aanan soo laaban haddii aadan ka faa'iidaysanna waxaad ogaataa in waqtigaasi marnaba uusan kuu soo laabanaynin had iyo jeerna waxaa muhiim ah waqtiga adigu aad haysato in noloshaada aad ku maarayso noloshaadana aad uga faa'iidaysato adigu aad noqoto mid waqtigiisii maareeya weliba ku maareeya horumarka naftiisa haddii taa aad ku dadaasho waxaa kuu sahla markaasi inaa adigu aad noqoto mid waqtigiisii ka faa'iidaystay haddana waxaad noqon doontaa mid mustaqbalkiisii guulo ballaaran ka gaaray run ahaantii mawduuca hadda aan maanta aan ka hadlaayana waa mawduucaan ciwaankiisii aan hore ugu soo sheegay taasoo ah maxaad ka og tahay naftaada mawduucaani marka aan baaritaan aan ku samaynayay run ahaantii waqti badan ayaan ku bixiyey juhdi badan ayaan ku bixiyey juhdigaasi oo had iyo jeer aan ugu talagalay su-aalo laga soo weydiiyey baraha facebooka su-aalahaas ku saabsan mawduucaasi inuu yahay mawduuc aad u ballaaran oo layga codsaday asxaabtida ay iga codsadeen inaan ku soo sameeyo research kabacdina aan ka soo duubo kilibka video ee maanta adigu aad daawanaysaan mar labaad iyo mar saddexaad ayaa waxaan rabaa inaan u mahad celiyo asxaabtayda qaaska ah ee ku xiran beedkayga facebooka ah oo had iyo jeer daawada videoga aan soo dhigo had iyo jeerna ila sheergareeya fikradahooda kala duwan kuwooda wanaagsan had iyo jeerna ii soo gudbiya maqaalo aad u wanaagsan maqaalahaasi oo had iyo jeer ka hadlaya wanaagga bulshada had iyo jeerna ka hadlaya horumarinta arrinta soomaaliyeed aad baan idinku mahad celinayaa sida wanaagsan fikradihiina aad iigu soo gudbiseen meel kasta oo aad joogtaan waa anigoo abubakar maxamed nuur oo idheh assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu